Afrika dhageystayaal waxay ka weyn tahay wadamada China, Mareykanka, Hindiya, Mexico iyo inta badan wadamada Yurub oo la isu geeyay. Yurub iyo Afrika waxa kala sooca oo kaliya masaafo gaadhaysa 14 kiiloomitir oo kaliya, taasi oo haatan la hadal hayo in laga dhiso bridge-kii adduunka ugu dheeraa. Qaaradda Afrika waxa ay hoy u tahay tirada ugu ballaaran ee xayawaanka duurjoogta ah sida maroodiga Afrika iyo sidoo kale gariga xayawaanada ugu waaweyn iyo kuwa ugu dhaadheer adduunka. Qabiilka San ee ku dhaqan Koonfur Afrika ayaa haatan waqtigan waxa uu isticmaalaa agab la mid ah mid haatan ka hor laga helay god muddo laga joogo 44,000 oo sanadood ka hor. Waa dib u dhac aad u weyn. boqolkiiba 40 caruurta Afrika ee ay da'doodu tahay 5 jir ilaa 14 jir waxa loo diraa shaqooyinka ay dadka waaweyn qabtaan sida falashada beeraha. Qaaradaha Afrika iyo Asia meelo kamid ah oo kaliya ayaa adduunka laga helaa dad si ay biyo u soo dhaansadaan u soconaya in ka badan 3.7 mayl intii u dhaxaysay sanadihii 1525 ilaa 1860 in ka badan 12.5 milyan oo Afrikaan ah ayaa la afduubtay oo adoon ahaan looga iibiyay qaaradda Ameerika. Facebook waxa uu qaaradda Afrika ku leeyahay in ka badan 100 milyan oo isticmaale oo maalin kasta gala bartaasi Facebook. In ka badan 96 maroodi ayaa lagu dilaa qaaradda Afrika maalin kasta. Xayawaanka ugu khatarsan ee dhageystayaal ku dhaqan qaaradda Afrika waa jeerta. Inta badan guurka qabiilka Dogon ee ku dhaqan galbeedka Afrika waxa ay haweenku tixgeliyaan inay guursadaan qabaa'ilka kale, taasi oo ah sharci ay haweenku ka dhaxlaan hooyooyinkood. Wadanka Koonfur Afrika waxa lagu magacaabaa Rainbow Nation amba qarankii jeegaanta. Jeegaanta ayaa dhageystayaal waxa la sheegaa inay ka kooban tahay 11 midab oo asal ah. Dalka Koonfur Afrikana waxa uu leeyahay 11 luuqadood oo rasmi ah. Afrika oo kaliya ayaa laga helaa khamri laga sameeyay ama laga farsameeyay muuska. Sidoo kale Koonfur Afrika mararka qaar wax weyn sharcigu kama qabto jabsashada baabuurta. Karaka Machel oo aad si weyn u wada garanaysaan ayaa waxa ay noqotay haweeneyda kaliya ee marwada koowaad ka noqotay laba dal oo kala duwan oo kala ah Mozambique iyo South Africa oo madaxweynayaashii hore ee labadaasi dal ay u dhaxday. 1998 dhammaan 11 ciyaartoy oo ciyaarayay ayaa waxa dilay danab qaaradda Afrika. Sidoo kale ku dhawaad kala badh macdanta dahabka ah ee la qodo ayaa waxa ay ka timaadaa hal meel oo kaliya oo lagu magacaabo Witwatersrand oo ku taala Koonfur Afrika. Waxa jirta aaminsanaan weyn oo ah in shabeelkii duurjoogta ahaa ee loo yaqaanay Wild Tiger uu ka dabargo'ay qaaradda Afrika, halka kaliya uu ku harayna ay tahay Asia. In ka badan 1 milyan oo reer Yurub ah ayaa la qabtay oo la qafaashay oo adoon ahaanna looga iibiyay wadamada ku yaala waqooyiga Afrika sanadku markuu ahaa 1530 ilaa 1780. waa cajiib. Ma ogtahay dhageyste in qaaradda Afrika ay ku nool yihiin dad ku hadla afka Faransiiska oo ka badan dadweynaha Faransiiska. Ciyaartooygii caanka ahaa ee Didier Drogba ayaa waxa uu qayb weyn ka qaatay xabad joojin uu soo abaabulay, taasi oo qayb ka noqotay xalkii loo helay dagaal sokeeye oo 5 sano ka socday dalkiisa Ivory Coast. sidoo kale ma ogtahay dhageyste orodyahanada ugu dheereeya caalamku inay ka yimaadaan hal qabiil oo ku dhaqan wadanka Kenya ee qaaradda Afrika. qabiilkaasi oo lagu magacaabo Kalenjins. wadanka Tanzania ee Afrika waa halka ugu badan ee ay ku nool yihiin dadka loo yaqaano albinoska ee diirkooda ama maqaarkoodu uu cad yahay. dadkaasi oo had iyo jeer loo ugaarsado ama loo laayo iyadoo ay dadku aaminsan yihiin in qofkii dila uu baraka ka helayo. wadanka Lesotho ee qaaradda Afrika ayaa ah wadan guud ahaan baaxadiisa dhuleed ay heerka badda ka sareyso in ka badan 1,000 mitir. wadanka Liberia ee ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ma ogtahay dhageystayaal inay aasaaseen muwaadiniin Mareykan ah. waa adoomihii hore ee Mareykanku uu ka iibsaday Afrika ee xornimada markii ay heleen go'aansaday inay qaaradooda Afrika dib ugu laabtaan oo intay ka soo degeen Liberia halkaasi ka sameeyay dalka aynu maanta naqaanay ee Liberia. 2010 wadanka Ghana ayaa dhageystayaal waxa uu mamnuucay
dharka hooska gashiga ah ama hoosta laga xidho ee hoodedka ah. qaaradda Afrika waxaa ku yaala 16 dal oo ka horumarsan ama kaga horeeya dalka Mareykanka dhinaca talaalka. haweenka qabiilka Mursi ee ku dhaqan Afrika ayaa waxa ay afkooda ama dibnaha ay gashadaan agab ama weel sida baleedka oo kala ah kaasi oo balliciisu uu ka weyn yahay 5 inch. waddanka Mozambique ee qaaradda Afrika ayaa dhagaystayaal ah waddanka kaliya ee qaaradda Afrika qoriga AK-47 uu ku sawiran yahay ama astaanta calanka uu yahay. guud ahaanba 3 meelood oo meel luuqadaha lagaga hadlo guud ahaan adduunyada ayaa waxa lagaga hadlaa qaaradda Afrika oo kaliya. ugu dambeynna gariga quruxda badan ee Afrika caan ku tahay ayaa ilaa haatan la xaqiijiyaa inay ku dhaqan yahay ilaa 7 waddan oo Afrika ah.